السلام عليكم أصحابتي الغالية dhammaantiin meel kastoo joogtaan aad baan ii salaamayaa waa walaashiin maanka deeqa maanta insha allah waxaan ii wadaa croissant aad u macaan oo aan guriga ku sameeyay oo ku sameysan kartaan gurigiina kale maasha allah tabaaraka allah uma baahnidin inaad tagtiin dukaanka aad soo iibsataan oo maaragtay kharash inigaga baxo gurigiina maadaama iminka waqtiga aan ku jirnana ay tahay rabadaan lama baxno markaa in la baxbaxo oo joogna xun yahay oo maaragtay oo adduunkiina ka jira xaalado xunxun corona leegeed markaa waxaa u baahnaa insha allah inaan gurigeena ku tijaabsano maadaama inaga ka Soomaali ahaan aad u isticmaalo croissant markaan dukaanka tagno ayna wax kala badiya inaan iibsanin bahalkaan oo badanahay kadib waa kasoo fikira waxaan sirey maaragtay bahalkaas ugu fiican wax aad gelin karto oo maaragtay walaalaha anfici kara adigana maasha allah tabaaraka allah hore ku anface yagana waynu anfacaa insha allah maasha allah markaas sida sawirkan ayuu soo baxay waana arki doontaan saan u sameynayo dhexdiisana ma wuxuu noqonayaa sida kan aad dukaanka ka iibsano kale inuu dabaq isu dul yaalo oo maaragtay uu saa markuu isu soo laabo oo dhexdiisa bush oo camal uu yahay oo kale oo maaragtay faraha kala raacayo marka insha allah saan u sameeyay waan nila wadaagayaa dushiisana sidan aad aragtaan buu soo baxaya markaa haddaad rabto aad baad u caseyn kartaa haddaad rabtana maaragtay aada ma caseynaysid waxaad ku sameyn kartaa oo kale waxaad rabtaa dusha ka marin kartaa sida caano dadka qaar baan eega nacab naalada nacab markaa naalo la-aan horta ma soconayso haddii aad jeclayn inaad dusha ka marto waa sugaysaa bas ilaa inta uu dusha kasoo casaanayo uu iska soo qabsanayo oo hoostiisana kasoo casaanayso si fiican isu soo qabsanay insha allah waan nigu tusi doonaa sida aan u sameeyay haddii ilaahay qadaro sida tan ayana u dhici doontaa waxaan soo qaatay daqiiqdii kadib waan xashay markii aan xashay kadib waa diyaarsaday waxaan u diyaarsaday sida aad arkaysaan afarta koona iska wada leeg ee dhan walba iska wada leeg kadib waan soo jarjaray waan soo wada yaryareeyay dhinacyada waa inuu sida aanu isu wada leekaanin halka hore u dhuubnaada halka dambena u balaadhnaa si aad marka dambe aad u duubi karto oo waxaad doonto aad u dhex dhigi karto waa ina isweydaar midna u yaraada midna u dheeraada sida aad halkan ku arkaysaan imika insha allah marka aragti ahaan waxay noqonaysaa sida saambusaha kale ayaad moodaa inay dherer ahaan oo kale xagga dambena ay ka balaaran tahay maasha allah tabaaraka allah waa sidan aad u aragtaan run ahaantaan waan yara mitiriyay bahal yar baan soo qaatay masarad oo kale ah oo loo isticmaalo keegaka iyo maaragtay waxaasoo dhan waan tusi doonaa insha allah bahashaas soo qaadan kartaan haddii aanad haysanin bahal yaroo aad isku leekleekaysiin kartaa ayaad soo qaadanaysaa si uu isugu kaaleekaado haddii aad rabtid bar inaad ka dhigto yar waa yaryareyn kartaa haddii kalena waxaad ka wada dhigi kartaa isku wada size oo is wada leekaan karaan marka waxaad sameynaysaa marka aad intaad jeexjeexin ka hor ayaad koonaha kaga qabanaysaa dhinaca kale marka laba koone isku dhinac kagama wada qaban kartid waa inaad dhinacan kaga qabataa oo dhinaca kasoo horjeedana aad kaga qabataa si ay isaga soo horjeestaan mid dhuuban mid daba dhuuban iyo mid inta dambe oo dheer ma garataan saas sawirkanba u aragtaan marka waxaad kaloo sameynaysaa aad jarayso aayar baad u jaraysaa waayo daqiiqdii aad bay u faxday aad bay isugu dhacday waxaanad rabtaa inuu kala sarsareeyo oo uu dabaqiyo kala noqdo uu sidaa u kala sareeyo ma aha inaad aad marka aad wala waxaysid aad intaad ugu xejiso kadib markaaba jarjarto waad yara sugaysaa hareerahaad ka jarjaraysaa hadda inay tusaysaan u sameeyay waa kaasaa markii aan soo qaatay jeexaygii waxaan samaystay waxaan rabay inaan ku darsado shokole dhexdan ka geliyay kadib saa yar ee fudud ayaan u duubay kadib saasuu isku soo baxay hareeraha yarna saasaa ka duubaysaa tan kalena mar labaad eega labada koonaan qabtay kadib waan ku duubay shokolaan dhexda ka geliyay saasaan u duubay waa kaas saasuu soo baxay labada koone yaryarna sidaasuu kasoo baxaya labada sasaad isugu celinaysaa marka waa kaas badhna waan sameeyey badhna weli maan sameynin bahashaan ku mitirinayna waad aragtaan dusha yar bay soo fadhidaa marka saa usoo laabta saasay noqonaysaa saa aan isu garab dhigdhigeed oo aragtaan
run ahaantii korba usoo kacayaa ilaa waa waxa maad aragtay aada isku soo habaysato soo fixisato isku soo diyaarsatay. marka waa kaas dusha sare ma aha inuu kaa khalkhaldamo insha allah ka taxadar. saasaad u dhegdhegaysaa waanad kala yara fogeynaysaa kadib kan kale ayaad maad aragtay sameysanaysaa. maaha muhiim inaad degdegtid oo kale waa inaad inta ugu horeysa aada u fiirsataa si uu ugu ekaado kii aada iibsanaysay oo kale. markaa dhexdiisana waxaa rabtaa adigaa ku darsan kara haddaad rabtid qoklaad inaad ku darsatid haddaad rabin aday taas ku khuseysaa. run ahaantii badhna waxaa ku sameeya ani inaan qoklaad ku daro badhna aana ku darin markaasi ay waalidka iyo hooyo iyo dadka aan shokolaadka jeclayn ay cunaan. dhinac inteedana kale waa ku darsaday maasha allah. mididii aan ku googoosanayna waa taas dusha sare saaran tahay saa ujeedaanba. bahalka kalena waa ku qiyaasanayay kii lagu qiyaasanayo waaye saas hareeraha waa inay uga go-naato oo dhan walba uga sinaato. run ahaanti waa casariyeer oo macaan oo maasha allah tabaarkala gurigaaga ku sameysanaysid aada u baahnayn inaa baxdid maaragtay oo mar walbaad rabta aada sameysan kartid waayo wixii waa taqaanaa maaragtay adigaa sameysanaya markay dadku imanayaan oo kale. dushiisana sida loo sharaxa insha allah waa inii soo gelin doonaa haddii aad jeceshiin inaa waxba ka dul marmarisiin saa uga marin doontiin. haddii aydaan jeclayn inaad wax marmarisana run ahaantii adiga dookaaga insha allah. waan la soo wadaagayaa inta kalena saan u sameeyo. hadda saasuu kusoo baxay maasha allah. waa ujeedaan hareeraha saa isaga simay koonaha sokeena iska simay ay iswada leegyihiin mid walba midii kale ay leeg tahay oo mid ka weyn aan lahayn. marka insha allah soo wada dhameynayaa kadibna waa inii soo dhigayaa. waa kaasaa saasuu soo wada noqday waa yara daaya uu soo fuuray kadib fuurinkan geliyey waxoogayaa ku daayay saasuu kusoo baxay. waa ka asxaabay saasuu kusoo baxay markii lasoo dhameeyey maasha allah. muqarmash ah oo saa u kala goosanaysid haddii aad ka heshaan insha allah dib aan iigu soo sameyn doonaan oo aada u baahan tihiin in macno gaara laga soo bixiyo ama aada aan usoo macneeyo saa u xashay sidaan u sameeyo oo kale oo aada uga baahataan tafsiir dheer. marka insha allah way la soo xiriiri doontaan. saasuu nu soo baxay maasha allah tabaarakallah lagama sheekeyn kara asxaabay. muqarmash saas u jilicsaya sidii kii kale ama aragtay aada soo iibsanayseen oo kale waaye oo kan aada hubto gacantaada ku sameyso oo maanta sameysatay oo u baahnayn inaad ka fikirtid goorma la sameeyey talo mise cishuu yaalay waa jeclahay keliya hadda aanad u qaadanayn kan waad hubtaa adaa sameystay gacantaada ku samaysatay maasha allah. waxaa naftaada wax ku noqonaysaa qof ku faraxsan oo kale anaa sameystay maasha allah tabaarkallah. marka asxaabay insha allah waan nii soo macneyn doonaa haddii aad macno dheeraad uga baahataan oo aada rabtiin in aada laynigu fasiro oo step by step aan usoo duubo. kale kan waan degdegayay waxaana jeclaystay maadaama xaafaduu sameynaya inaan nila wadaago. haddii macno dheeraada u baahataan saa inii sheego soo qoraysaan commentkaad kusoo qoraysaan insha allah maalin ay ma laba cishay iga qaadan doontaa intaa iniga soo jawaabayo. waa kaas afurka kalena aada buu ugu macaaya. afurka markaad baajiyaha samaysatid waxyaabaha kala samaysatid wax cusub rabadaanta waa inaad la timaadid moogtahay. marka aada buu u fiican yahay in wax cusub oo kale aada kusoo darteed saa darteed inaad kuraasoo kasoo dartid oo nooc aad waxaa rabtid marsan karteed isagoo qoklaad aad sameysan kartaa. waa nila soo wadaagay insha allah saa u sameynaysiin iyo saa u sharaxdo iyo sida aan u kala badbedelo anigoo mar quraata sameeyay mid walba nashqad gooniya siin karaa oo maaragtay ama kan cadaan ka dhigi karaa marka kana qoklaad madow ku sharaxi karaa. markaa saas aan la soo wadaagi doonaa insha allah. dhammaantiin meel kastood adduunka ka joogtaan waxaan leeyahay ramadaan kariim taqabbal allahu minna wa minkum. ilaahay tii aan maaragtay ku aflaxno oo ilaahay acmaasheena aqbala allaha ka yeelo. waana nii soo dacaynaya insha allah dhammaantiin meel kastoo joogtaan aad baan ii jeclaa asxaabtayda qaaliga waana ku mahadsantihiin sida quruxda badanna ay soo taageertaan. anina sidoo kale waan iiga mahad celinayaa walaalahay aad tihiin waana mahadsantihiin meel kastoo joogtaan aad baan ii jeclahay. ramadaan kariim taqabbal allahu minna wa minkum. aad baan inii salaamayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waan iga tagay insha allah.